السلام عليكم aniga aan jooxsan ugu soo maskaxmaan muuqaalka waxa ku eegi doonaa Safi Connect uf.xyz platformkan ama website-kan waxa ay soo diray mid kamid ah daawadayaasha ama subscribers-ka maskaxmaale iguna soo diray bariidiye waliba linkigu ii soo diray linkigaas oo yiri waa referral linki oo ii sheegaya hadii aan iska diiwaan geliyo kalena $20 helayo marka laga yaabo in hore linkaas kale ku yimi qaarna kamid laga yaabo inaad ku jirtaan website-kan sidoo kale xagga sare dad eegtid wuxuu leeyahay looga kale oo aan magaciisa la mid ahayn marka si dhiib review ga bixin doona platform dhab ah waqtiga u qalanto ka shaqeysan kartida mise waa platform u baahatay inaad ka fogaatid haddaad ku jirtidna ka baxdid hadii aadan ku jirin aad ka fogaatid si dhiib leh review ugu eegi doona haddaad ku cusubtay channelka fadlan subscribe dhada ku dhufan barnaamijkaasi xagga seela gambeelkan furnaysa aad ogaatid mar walba maskaxaana muuqaal soo geliyo soo kan la helmaan muuqaalkan lecture ku dhufan sulka xagga seela kor u jeedo soo muuqaalka asxaab badan si gaar looga faa'iideysto saan soo sheegay platformka URL-kiisa xagga sare waa ku qoran ka soo boqon kartaa marka timaadidna magaciisa waxa la dhahaa social oo socialist icon-ka ku xiga waxa weeye waa dollar sign-ki oo ST ugu taagan marka socialist magaciisa noqonayo halkan title-ka u sareeyo kala waxa ku qoran make $500 today get paid to test apps invite friends do surface wuxuu ku sheegay $500 maanta inaad sameysid kaliya adigoo asxaabtaada ku casuumaya ama surface qabanaya ama apps test garanaya oo mobilkaaga ku shubanaya ama computerkaaga waxaas oo dhan buu ku leeyahay qabo oo maalintii $500 shaqeey halkan oo kale aad ku dhufto wuxuu ku tusaya live payments oo arki doona hadii aad leedmo soo kale reviews baalan ku sheegaya oo kale ku leeyahay dad baa jir review ka bixiyo website-ku la jid yahay in kale aadna arki kartaa marka hore aan ku horeyno live paymentska halkan oo kale badhanka cas ama dotkan cas bad boodboodaya wuxuu iska dhigay inuu live analytics ku siinayo ama ku tusayo si live ku tusayo halkaas oo kale hadaan eegno wuxuu ku tusayaa kale dad payments la baxay oo screenshots kan qof walba qaadi kara oo qof walba eegi kara laakiin balan eegno wuxuu sheegayna dhab yihiin in kale paymentska hadeer la bixinayo ku leeyahay socda bal eeg buu ku leeyahay watch payments as they sent out la soco ku leeyahay lacag markii la baxaba halkan ay ka soo muuqanaysaa buu sheegaya marka halkan waa userska oo ku taxan userska magacyadooda iyo wadankooda iyo inta lacag la bixeen saan kale wuxuu sheegaya usri oo kale wuxuu la baxay United States jooga $1550 buu la baxay halkan qofka ka hooseeyo kale Alexis N isaguna Mareykanka jooga United States wuxuu la baxay $537 marka halkan wuxuu ku tusay list dadkii u dambeeyay oo lacagta la baxay hoosteenu socon halkan waxaad ka aragtay xagga hoose oo kale badhanka weyn ama daaqada weyn ee footerka ah meel walba website ka tagtidna ku daba soconaysa kuna sheegaysa inaad ku soo biirtid website-ka 10 daqiiqo ku qabanaya lacagtaas Soomaali ahaan shilin Soomaali halkan igu xisaabinaya soo kale halkan wuxuu sheegay waqtiga hadhisan u galo iyo inta uu siinay $20 marka waa scarcity baa la dhahaa wuxuu ku sheegay kale inaad iska diiwaan gelisid $20 aad heshid waan iska diiwaan gelinaa waan eegi doonaa gudihiisa hadii aad leedmo kaasina waa live paymentski oo halkan kugu tusayo oo soo noqon doona inuu run yahay inuu been yahay waxyaalo badan baynu ka sheegi doonaa hadii aad leedmo halkan ku hooseeyo kale wuxuu ku sheegay reviewska page-kan testimonial-ka marka timaadid ee reviewska halkan wuxuu leeyahay what our users have to say maxay naga yiraahdeen userskayga ama macaamiisheeda ugu xiran marka halkan wuxuu ku soo dhigay muuqaalo kala duwan oo uu kugu sheegayo inay yihiin dad si dhab uga shaqeystay platformkan lacagtooda la baxay kuna faraxsan platformka xaggan ugu hooseeysan wuxuu iga tusayaa inaan iska diiwaan geliyo oo waa footer kale marka mid aan meesha ka saarno dadkan aad arkaysid ee ku leeyahay review bay ka soo bixiyeen waa laba mid waa dad freelancers ah oo lacag la siiyay ama influencers ah oo website-kan lacag u offer gareeyay soo lacag badan u sameeyo kuna yiri ka soo bixiya reviews website-kayga ama waa dad platformka gudihiisa ku jira oo loo sheegay inay lacagtaas kala helayaan oo muuqaal yar short ah soo duubaan saan loo isticmaalay laakiin ta koowaad baa sax oo dadka saa u jeedid waxay wada eegin influencers waayahay website-ka aboutkiisa aan eegno iyo wuxuu qaabilsan yahay iyo waxay isku sheegayaan iyo meesha joogaan baleenu eegno wuxuu ku sheegayaa markaad ku soo xirantid Safi Connect waxaad ku soo xirantay community malaayiin qof ka kooban kuwaasoo doortay inay wadaagaan aragtidooda kala duwan sidoo kalena offers website ka shaqeystaan paymentina dhaafsadaan maalin walba boqolaal brands buu ku sheegayaa baa jecel inay ka shaqeeyaan ama ku soo xirmaan oo alaabtooda ku xaysiiyaan Safi Connect wuxuu ku sheegay kale xog baan la wadaaganaa kombaniyada ku xiran ee nala shaqeynaya ee brandska kala duwan macaamiisha baan ku xiranaa iyaguna alaabtooda way iibsamaysaa soo u jeeda waa sida adiguna lacag baad ka sameynaysaa halkan wuxuu ku sheegay waxaan haysanaa buu leeyahay wax walba oo u bedelay mobilkaaga income wanaagsan ka dhigay meelaad income source fiican ka heshid oo secure oo ammaan aad ka helisid soo wuxuu ku sheegay kale halkan erayo ku qoray xx u badan waa community kaas ka kooban 20 milyan halkan wuu isku saxaysinay laakiin halkan oo kale waxay u taagan tahay maaqaan x tan faraha badan waxaan u maleynayaa waa tables ama badanka scammerska ama wasida aan legit-ka ahayn waxa ku badan errorska waaya contact us baan ku sheegay aan ku dhufano contact us-ka halkan oo kale wuxuu kugu sheegay foomka inaad buuxisid habka loola xiriir karo foomka buuxisid soo kan wuxuu ku sheegay live chat inuu leeyahay halkan oo kale wuxuu ku leeyahay email-ka noo soo dir bal email-kana u socdo aan eega email-kan email sax yahay oo shaqeynaya iyo email beena anigoo isticmaalaya email checker-kan oo horay website
emailyo hore aan u soo test gareey aragtay waxa sameynaya halkan waxa ku paste gareynaya emailkii aan soo copy gareeyay kadibna waxaan ku dhufanayaa check soo u sheegay resultigu waa bad waa email aan jirin SMTP-giisu iyo guud ahaan soo u shaqeynayo ma aha email xitaa samaysan ma aha marka SMTP-ga laga yimaado marka taasina waxa ku sheegaysaa hada website-ka email u dirtid inuusan hayn website jira oo website-ka legit-ka badanka aad bu customerskiisa uga fakiraa inay la soo xiriiraan aadna waqti badan bay ugu bixiyaan taasina waa red flag kale waayo halkan info kale wax ku sharaxaya contact FAQ-ga privacy policy-ga iyo fraud policy-ga marka waxaan ku sii dheeraan maayo waxaan rabaa inaan gudihiisa sii galo oo aan arko gudaha soo eegyahay iyo sidoo leeyahay looga shaqeysto adigu ma baahnid inaad iska diiwaan gelisid kaliya waxaad sameeysaa ila soo muuqaalka aniga tijaabinaya oo isku biimeynaya si aad u aragtid soo u shaqeynayo iyo inaad soo qaadi kartid iyo kale kadib markaas aan app ku soo dhufatay wax kale formkan buuxi oo full name-ka magacaaga dhameystiran gali username-ka magacaaga ku marisid email-ka halka gali password-kan laba jeer confirm garayo gali kadibna I agree halka ku dhufo sax saar dambeeytana seen app ku dhufo si diiwaan galisid way markaas ka soo diiwaan galisid wuxuu keenay doonaa dashboard-kii oo sidan oo kala ah isla markiiba wuxuu isyeeshay $20 halkan sida aragtidba oo shilin Soomaali ahaan nagu bay igu converter gareeyay Soomaali ahaan taas shilinkeeda u dhigma halkan sarna wax ka tusaya linkiga dadka la wadaaga sid oo waa linkiga aad mar walba ku arkaysid social media ama meel walba lagu soo dirayo hadhow sheegi doona haddii aad leedahay sababta social media kala doon ugu arkaysid linkan la soo copy gareynayo oo eegi doona marka halkan sidoo kale social network status oo kale inta jeer lagu dhuftay linkaaga oo aad dadka la wadaagtay inviteska inta qof aad la wadaagtay postiska inta wax soo dhigtay oo kale marka waxay soo dhow waa affiliate-kaaga marka dadka la wadaagsid offer status inta abaad test gareysay inta survey dhameysay iyo waxyaalaha kale ee guud ahaan offerskaaga halkan wuxuu ku leeyahay payment-iga sid app gare oo saad lacagta la bixi kartid haddaan dusheeda hal mar ku dhufto wuxuu ku leeyahay method-ka dooro halkan habab kala duwan ku tahaya sidoo kale PayPal bank card oo Visa card iyo Mastercard waxa isku hadlay Western Union Sele Venmo ka kuwan kala duwan cash app iyo Google Play-ga inta waad ku xiran kartaa hadaad payment-iga ku xirtaa halkaas ka xiran kartaa laakiin balan eegno lacag ku sinayeen kale halkan oo soo kalena waa habka lacagta ugu sameey kartid soo ku sheegayo hadaad apps-ka test gareysid app-ki waxaad ku helaysaa $50 hadaad asxaabtaada ku casuuntid waxaad helaysaa $10 oo invite friends-ka ah hadaad surface-ka qabatid waxaad helaysaa $50 hadii challenges-ka aad qabatid sidoo kale taping-ka oo kale eriga saxda oo kale aad qortid waxaad helaysaa 0.2 challenge-ga xalisidba halkan wuxuu ku leeyahay see all offers-ka oo offers kala duwan oo dhisado aragtid oo hadaan ku dhufto halkan hoose soo kale wuxuu ku tusayaa home invites offer income intaas ku taxaya halkan wuxuu ku sheegayaa inaad wax weli qaban oo balance-ga 0 ka wada dhigaya halkan wuxuu ku sheegayaa offer-ka saad lacagta u heshid waa inaad shaqada qabataa lacagtan lagu siiya credit-kaaga waxaad ku helaysaa 5 ilaa 10 daqiiqo markaad mid walba dhameysid ama survey ha noqdo ama test garanaysa ha noqdo markaas lacagta lagu siinaya ku leeyahay halkan wuxuu ku taxaya electro one inaad $50 ku helisid hadii aad la soo degto app-kaas oo kale marka captcha oo kale hadaa xalisid isagana wuxuu baa kugu siinaya ku leeyahay kasaan ku cadeyn kuwaas waa offers kala duwan oo halkan waad ku dhufan kartaa gameska iyo apps-ka iyo services-ka marwada ku dhufanaysaa soo kuwa gaarka ah ku tuso sidoo kale mar walba waxaad arkaysaa xagan sare waxa ka soo boodaya notification ama pop-up-kaas wax ku siinaya scarcity qofba intaas oo lacag la baxay oo intaas oo dollar sameeyay 14 second ka hor soo aan ku sheegay kale 5 daqiiqo ka hor 10 daqiiqo ka hor 1 second ka hor marka waa dadka cusub oo kale muxuu sameynaya uu dadajinaya marka inta gunti iyo gunaadka u guda galeen maxay tahay sababta aad u arkaysid linkiga la soo copy gareynayo ee lagu soo diray social media kala duwan marka dadku wuxuu sheegay in lacag ku sameynayaan taan oo kale seen soo aragnayba $10 ku sameynaya saaxiib walba ku casuuntid marka halkan waxay u noqonaysaa lambar ugu xisaabinaya qof walba ku soo casuumo dadku waxay isleeyihiin lacag badan si sameeyo marka labaad lacagta markuu la baxayo wuxuu u sheegayaa kale dad badan ku soo casuuntid saa lacagta oo la bixi kartid tusaahaan oo kale hadaan xagga falaadhan xagga u jeedo kale ku dhufto waan ku dhufto cash out haddana aan ku soo dhufto halkan cagaarka cash out wuxuu sheegayaa kale sorry you have not reached the minimum withdrawal amount $200 markaad gaadhid lacagta la bixi kartaa wuu sheegaya marka taasina wuxuu ku sii sheegayaa kale inaad dad badan ku soo casuuntid lacagtaas oo la bixi kartid dadkuna waxay arkayaan inay hab fudud tahay oo lacagta kula bixi karaan haddii aad tahay qof lacag weli kala baxay qaybta hoose ee comment-ga ku soo qor nooguna cadee adoo weliba noo soo raacinaya lacagtaad kala baxday iyo saad uga la baxday guntiga gunaanadkii website-kan ma yahay website legit ah oo ka shaqeysan kartid mise website fake ah oo baahan inaad ka fogaatid 100% website-kan waa website fake ah una baahan inaad ka fogaatid qof walba ku jira waxaan kula talin lahaa ka fogaado qofkii aan ku jirin ha gelin baa ku oran lahaa sababtan u leeyahay sida maxay tahay marka koowaad waxaanu tijaabinay oo mainner red flags-ka ahaa email-koodu ma aha email shaqeynaysa ujeedadu waa bad oo mail lama aad email-ka tagtid no mail server for email-kan oo kale aan ku qoran hello body oo kale oo maba diiwaan gashna oo email server boo kama diiwaan gashna oo ku dhacay email-ku kadib email-kan waa email been ah oo aan jirin waa talabaad haddii homepage-ka booqatay wuxuu ku
kuu sheegaa maalba $500 inaad ka helaysid oo saaxiibo ku casuumay oo kale ma jiro company adduunka kuu sheegaya saaxiibaad ku casuuntid maalintan $500 ka sameyn kartid ma sheegin karabti currency-ga iyo habka cusub tusaale kale $1 oo kale waa hab legit ah oo token bu ku siinaya tokenkaagaasaad sanadka mar kula bixi kartaa dadka kula taliya dadka raadinaya hab fudud ee lacagta kula baxaan laakiin company kule $500 ba maalinta waxa ka sameynaysaa kaliya inaad saaxiibo ku casuuntid dhamaan industry-ga make money online-ka waliba service-ka website ka shaqeeya kuma arki doontid website legit ah oo waxaan kuu sheegaya way jiraan website aad ka shaqeyn kartid laakiin waa website-yo waliba inaad joogtid western-ka iyo wadamada Yurubta oo kale saad uga shaqeysid mana aha website saaxiib kaliya ku casuumaysid markiiba $10 helisid talabaad oo kale payments waa eegnay waa fake payments maaha payments jira wanaga soo aran reviews oo kale wuxuu ku tusay video kala gaar ah videodina waani kuu sheegay waa freelancers ama dad u lacag siiyay influencers kadibna muuqaaladan soo dub ku yiri sidoo website-kan u nasarcaadiyo macaamiisha cusub iyo userska cusub isaguna uu money badan u sii sameyn karo oo habku lacagta u sameyn karo waxa weeye xogtaada inuu sii iibiyo black market ku sii iibiyo sababta email-kaaga iyo xogtaadaas dhan buu haya taa wuxuu leeyahay IP address-kaaga black market-iskana $1 billion u yaraan $1 million ka sanaya ta u dambeysana waa scarcity halkan wuxuu sheegayaa 22 second ee hadhay ilaa intaan iska diiwaan gelin lahaa oo $25 ku guuleysan lahaa horaan ba iska diiwaan geliyay bannerkana saa u jeedid dadka cusub oo kale muxuu ku qabanaya waa scarcity inuu ku dedejiyo baqdin ku geliyo sidaad hore isaga diiwaan gelisid oo website-ka xogtaada uu helo $25 oo lambar beenana meesha kugu qoro ta u dambeysana waxa weeye website-kan halka sarada eegtid not secure oo SSL certificate oo kale available ma aha dhamaan website-yada hadda Google-ka oo dhan ku jira waxay u baahan yihiin inay SSL certificate leeyihiin SSL certificate wax weyn oo saas ma qabanayso ama secure payment iyo waxaas kale waxba ma qabanayso laakiin waxay tusisaa dadka oo inuu secure yahay oo SSL certificate kaasi halka oo muuqdo saa u jeedina hadeer waa URL maran oo xagga hore HTTPS kii kama horeeyo waana not secure SSL kii secure available ma aha halkan kale hadda ku soo dhufatid ku sheegaya your connection to this site is not secure inkastoo SSL ku xisa u weyn oo san qabaneen oo website-kan lahayn oo kale yahay website fake ah oo taa lagu shaabadeen laakiin waxaas oo dhan marka la isku daro tan lagu daro waxay ku cadeynaysaa company-ga inuu yahay company aan legit ahayn oo effort ama awood saas gelin website-kooda customer-kooda aan ka fikirin website-ka legit-ka ah markii wuxuu u baahan yahay inuu secure ka dhigo sababta ah website-kaaga hadduu secure ahayn macaamiisha dhan wuxuu tusayaa not secure taa micnaheedu macaamiil baad waaysa halkan ka soo hooseysana ugu dambeyntiina saan ku sheegay waxa jirta scarcity-gan ku sharaxay maxay sameeyay waxay gaadhay 0 bay gaadhay haddana dib ay soo restart gareysay taa micnaheedu waxa weeye waa been 10 jeer hadduu daqiiqadan ku tariyo waa daqiiqada been ilaa aad ka dhufanaysid claim now oo $25 beenta helisid akoon been ka sameeyay ugu dambeyntiina waxaan ku oranayaa soo sheegay website-kan ka fogow haddii aad tahay qof ku sirmay oo website-kan u shaqo doontay oo aan lacag ka helin oo digna kaga lumay qaybtiisa comment-ka nagula wadaagso asxaab badan uga hortago waxaan review-gan u sameeynayaa waa in asxaabta kaga hortago oo dadkan Soomaalida ee ku cusub yahay platform-ka on make money online-ka inaysan website-dan ku sirmin oo aan ku caawiyo waana sababta ugu badan waqtiga u gelinayo oo aan u soo duubayo muuqaaladan saan uga hortago inay dadku ku sirmaan oo kale sababta maalin walba waxaan intaasoo email intaasoo social media ku helaya especially baridii oo kale lagu soo diray linkiyo la leeyahay ma jiraan waxaan oo kale ka shaqeyso oo kale waxaan ku oran lahaa platform-ka ka fogow sidoo kalena haddii aad rabtiin aad gashidna ha gelin haddii uu jiro qof ku jirana uga dig saaxiibkaaga ah oo ku simashan garay u share garay muuqaalka intaas ku soo afmeerayaan ka hadliyay Safi Connect uf.xyz oo ku cadeynaya tahay platform aan jirin oo fake ah scamera hadaa ku xusubta channel fadlan subscribe aad ku dhufan barakaasi xago seel gambalkana furnaysa ogaatid mar walba maskaxda muuqaal soo geliyo sidoo kalena hilmaan muuqaalkan lecture ku dhufan suuqa xago seel ku jeeda soo muuqaalkan asxaab badan si gaar looga faa'iideysan karo inta muuqaalka xig kulmi doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad rabtid inaad lacag dheeraad ah sii samaysid ku soo dhawo baridii oo ah bulsheed kaas oo aad asxaabtaada kula xiriiri kartid post isla wadaagi kartid stories ka soo dhigi kartid wixii maalintaada ku cusub asxaabtaada meshan gareyn kartid adigoo isticmaalaya like dislike ama hashtagska samaysan kartid pages iyo groups aadna maamulan kartid live stream aad ka soo gali kartid si toos ah iyo features kale oo badan waxa xiisaha badan waxa weeye mar walba aad baridii wax soo dhigto ama postiska kale ka qayb qaadato waxaad helaysaa points ama dhibco kaas oo hadda u isticmaali kartid inaad pro membership ku codsatid dhawaana aan pointska u rogi doono in qof walba lacag ahaan ka dhigto pointskiisa xagee lacag ka sameynaya oo aad saxan tahay waxaad awood u leedahay inaad samaysatid blogs iyo marketplace kaas oo aad alaabtaada iyo adeegyadaada si bilaash ugu iibin kartid laakiin waxa intaa ku si dheer baridii wuxuu leeyahay affiliate program dhagahaaga waxay maqleen waa dhab waxaad ka helaysaa lacag qof walba aad ku soo casuuntid baridii si bilaash ah oo hawl yari ah si aad wax badan uga soo ogaatid qaabka iyo sida uu shaqeynayo subscribe channelka baridii hadda tag browser-kaaga oo ka raadi baridii.com ama si hawl yari ah uga soo deg app-iska Play Store-ka